haddaad doontidna ku dar oo waxaad tidhaahdaa ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. haddaba in lagu siyaadiyo washukr oo la yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu washukr wax asal ah ma leh. kana digtoonow kuna dadaal walaalka muslimka ahow inaad dhabarkaaga toosisid oo aad si fiican u istaagtid. nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuu ka digay in la fududaysto arrinkaa oo wuxuu yidhi لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها من الركوع والسجود. sujuudda waa in la dhigo dhulka 7 xubnood si gooni ahna loo dhigo. waxayna kala yihiin 7daas xubnood wejiga iyo sanka oo labada gacmood iyo labada jilbood iyo faraha lugaha fiidooda hore. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض. sidoo kale waa inaad ka fogeysaa xusullada labadaada dhinac, waana inaad kala fogeysaa caloosha iyo labada boodo. waa inaad taagtid cagaha cadcad adigoo isku dhaweynaya. ka ilaali xusullada iyo calaacasha inta u dhaxaysa dhulka aad ku dhajisid. waa qalad arrinkaa dadka qaar sameeyaan. ha iloowin walaalka muslimka ahow inaad ku xasashid sujuudda. wuu reebay nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh in sida tukaha la sameeyo. sida tukahana waa sujuudda aan lagu xasilin. waxaa waajib ah inaad ku xasashid sujuudda. waa inaad tasbiixsatid ugu yaraan hal mar oo aad tidhaahdid subxaana rabbiyal aclaa. wixii ka badan hal mar way wanaagsan tahay. ducada badi walaalka muslimka ahow markaad sujuudsan tahay. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. waxaa qaladaadka ka mid ah in shay kor loogu qaado qof xanuunsan si uu ugu sujuudo. taasi waa kalifaad iyo dhib. qofka muslimka ah waxaa ku waajib ah inuu dadaalo intuu awoodo isagoo aan isdhibayn oo aan ismashaqayn. qofkana lagama cafiyo wixii uu kari karo. fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood markii aad ku xasishid sujuudda kasoo toos adigoo fariisanaya istoosinayana. waxaa ka mid ah tacliimaadkii nabigu ina siiyey in markuu fariisanayo labada sujuud dhexdooda nabigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu lugta bidixda fidin jiray wuuna ku fadhiisan jiray. lugta midigna wuu taagi jiray. labadiisa gacmoodna wuxuu saari jiray labada boodood isagoo u fidinaya xagga qiblada. wuxuu dhihi jiray nabigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh rabbi ikfir lii, ama wuu ka kordhin jiray isagoo oranaya اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ogow walaalka muslimka ahow in fadhiga noocaan ah oo lugta la goglanayo oo u dhaxeeya labada sujuudood in loo fadhiisanayo xataa taxiyaadka marka la aqrinayo. sidoo kale marka sujuudda laga soo kaco oo loo istaagayo ragcada labaad iyo tan afaraad sidaa ayaa loo fadhiisanayaa. waxaa lagu magacaabaa fadhiga nasashada. ka digtoonow walaalka muslimka ahow inaad sidaasoo kale u fadhiisatid oo aad barida dhulka dhigtid cagaha cadcadna aad dusha u jeedisid. nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay fadhigaas al-iqcaa oo wuu reebay in sidaa loo fadhiisto. laakiin cagahow isku dhegan isla markaana la taago cirbahana lagu fadhiisto nabiga wuu ogolaaday oo wuxuu ku tilmaamay al-iqcaa sunna. waxaa qaladaad ka jira ka mid ah oo dadka qaarkii ay sameeyaan in ay cagaha saa isu dul saaraan kadibna ay ku fadhiistaan.
fadhiga ataxiyaadka u dambeeya. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته للتشهد الأخير يقدم رجله اليسرى ويضعها تحت وركه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى ويضع مقعدته على الأرض، وكان يضع كفيه على فخذيه فيقبض أصابع كفه اليمنى مع بسط سبابتها وتحريكها كأنه يدعو بها، ويبسط كفه اليسرى ثم يقرأ التشهد وبصره إلى سبابته. fadhiga lugta bidix la hormarinayo, tan midigna la taagayo, baridana lagu fadhiisanayo waxaa iska leh oo qura ragcadaha saddexaad oo maqribka iyo ragcadaha afaraad salaadaha waajibka ah. fadhiga oo kale ma lahan salaadaha labada ragcadood ah sida salaada subaxeed iyo salaada jumcaha iyo salaadaha sunnayaalka ah. waxaa ka mid ah siyaalaha loo aqriyo ataxiyaadka nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhina uuna baray sida tan: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. saliga nabiga oo la yiraahdo Ibraahimiya. markuu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhameeyo ataxiyaadka ugu dambeeya wuxuu ku salin jiray naftiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhi, sidaa ayuuna bari jiray asxaabtiisa. wuxuu oran jiray waxaad tiraahdaan: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. baro saliga oo xafid. walaalka muslimka ahow waxaa kugu waajib ah inaad raacdid mid ka mid ah siyaalaha soo aroortay oo ataxiyaadka loo aqriyo. mana ansaxayso inaad riwaayooyinka midba qaar ka qaadatid, waayo cibaadada waxba lagama bedeli karo. ducada ka dambaysa ataxiyaadka. ku dadaal walaalka muslimka ahow inaad ducaysatid ataxiyaadka kadib intaadan salaamo naqsan. nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh ducooyinka ku ducaysan jiray waxaa ka mid ah: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. salaamo naqsiga. salaamo naqsigu waa rugni ka mid ah rugniyaalka salaada, mana ansaxayso salaada salaamo naqsi la-aan. wuxuu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi u salaamo naqsan jiray gacantiisa midig asagoo oranaya assalaamu calaykum waraxmatullah, marmarna wuxuu ku dari jiray wabarakaatuh, kadibna gacantiisa bidix asagoo oranaya assalaamu calaykum waraxmatullah. ku dadaal walaalka muslimka ahow inaad u tukatid sidii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi u tukan jiray. dadkii waxay keeneen hadallo iyo ficilo aan wax daliil ah lahayn, waxaana ka mid ah in la raaciyo salaamo naqsiga midigta ah gacanta midig, tan bidixda ahna gacanta bidix, iyo inaad madaxa ruxdid markaad salaamo naqsanaysid. nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuu reebay arrinkaa. dadka qaarkii waxay kaga baxaan salaada hal salaamo naqsi dedegsiyo ku jirto awgeed. nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu salaada kaga bixi jiray 2 salaamo naqsi. in hal salaamo naqsi salaada looga baxo waa daliil aad iyo aad daciif u ah. iskaba daayay waxay kasoo horjeedaa hadaladii iyo ficiladii nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi. imaamku markuu salaamo naqsado kadib wuxuu u soo jeesanayaa xagga dadka. nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh
markuu salaada dhameeyo xagga midig ama xagga bidix ayuu iska soo wareejin jiray isagoo dadka ku soo jeesanaya. sidaa awgeed waxaa qalad ah inuu imaamka u sii jeedo xagga qiblada markuu salaada ka baxo kadib. كان من هديه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن يذكر الله بأذكار عديدة، فإن كان على أمر عاجل يقتضي الانصراف فعليه أن يسبح 10 وليحمد 10 وليكبر 10 أو 11 مرة. أما الأذكار المأثورة فمنها الاستغفار 3، وكذلك قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.